السلام عليكم walaalayga qaaliga ah waan idin salaamay waa walaashiina kuwiin duniya maasha allah kuwiin duniya waxay idin wadaa keegas quruxda badan casariiska fudud maasha allah soft inaba caadi ma ahan waa keeg yaroo cajiib ah hala soo tijaabiyo insha allah waa ka faa'iidi doontiin waa keegani keeg Soomaaliga doolsheer oo fudud oo laga soo tuuran jiray casari ila daawada wixii aniga aan ka sameeyay maasha allah walaalayga waxaan halkan aan ku haystaa waxyaabii aan ka hagaajiyay keega saliidaas yar koobka dhigtiisa hoose 3 xabo ukun ah bakinti iyo carfisadii iyo xawaa sokor iyo hal koob buuxo caano ah iyo nus kiilo bur intaas aan haystaa insha allah intaas isku darsan doonaa ila socda haduu ilaahay idmo waa keeg yar oo iska fudud casari ahaan ugu soo tuuranay waa iska Sunday guriyaha la joogaa maasha allah marka wax yar oo macmacaan oo casriya la iskaga baahan yahay soo maaha keegan ilmaha uu fiican yahay oo kula korinayaa sidoo kale qof weyn iyo qof yar caruur intaba waxa waaye way isticmaali karaan wax iska yar fudud waaye anytime la iska isticmaali karo hadda waxaan ku shubay 3 xabo ukunta ahayd sokortii iyo saliid oo koob dhigtiisa hoose ah joogtay ma badno saliid badan kuma darin waan iska saliid caadi waxa aan ku darsaday daartidna butter waa ku darsan kartaa marka qof walba waxay ku xiran tahay joyskiisa aniga saliid caadi ah ku darsaday waa saliid cadeeda ukunti intaas si fiican isku garaacaya ilaa iska soo dhaxgalayaan si fiican saasan ku soo wada insha Allah waa isdhaxgelinaya marab inuu waqtiga zaid idin kugu dheeraado qof walba waxa keeg uu iska yaqaan sida loo sameeyo laakiin aniga hadda waxaan rabaa inaan idin la sii share gareeyo walaalahayga waxaan jeclahay wax walba anigana aan sameesto inaan idin la sii share gareeyo si uga faa'iideysataan maasha allah qof baa jiro aanan aqoonin dadku isku mid ma qofna wuu yaqaanaa soo maaha qofkaan aqoonin oo igu xiran uu ka faa'iidaya insha allah hadda waxaan ku darsanayaa ukunti iyo sokor si fiican isku dhaxgaleen koobka caano aan ku darsanayaa hal koob waaye oo caano qandace ahayd si fiican isku sii garaaca insha allah maraw inaan idinku dheereeyo wax yar oo kooban aan rabaa inaan ka dhigo insha allah saan ugu caajisin bilaaw ilaa dhamaad horeyna waxa u soo geliyay channelkayga keeg kala duwan oo qaab kala duwan aan u sameeyay maasha allah kan waa ka faa'iideysiin asagana wax yar oo iska fudud waaye qofkii aan aqoonin uu ka faa'iideysan saa hore idinku sheegay hadda caanihi waa isdhaxgeliyay sokortii ukuntii sheeko kale idin sii galay oo dheer waxaan ku darsanayaa vanilla qofka haysanin wuxuu ku darsan karaa heel hadaadan jeclayn heel waa ku bedelan kartaa haddii aad jeceshahay carfisadaada ku darsanaysaa waxaan ku daray qaado haafkeeda anaga waxa waa carafteeda jecelnahay haddii aadan jeclayn waa iska deyn kartaa gabi ahaan waxa ku bedelan kartaa heel waxaan rabaa inaan ku darsado bakin qaado ku cabirtay waa qaadada yar zaid tan weyn ma aha haddana wax yar kale aan ku soo daray maasha allah kama badinay intaas waa si fiican isku garaacaya intaas si fiican isku garaaca insha allah kadib burkeyga furanayay burkiga furay intaas ku yar mashquulay marka burkiga aad ku soo darsasho bilaabaya saas ula socda si tartiib baan ugu soo darsanaa marbu kaaga badanaya isma ogtahay waxaan waa bucket wax ku jira burka algacan waa ku qasaa algacan waa ku furanaya marka saasan ku soo wadaa ila socda insha allah hal mar aan rabaa inaan u tartiibiyo zaid ugu shubin haduu igaga badana dhib ma lahan waxaa si tartiib baan ugu darsan rabaa uu batay hadeer uu igaga batay saas waaye hal mar buu kaaga badan karaa laakiin insha allah dadaalaya waan isdhaxgelinayaa si fiican inta isdhaxgelinayo waqti dheer ay qaadanaysaa marawina waqtiga idinkaga sii dheereeyo waan soo qasayaa si fiican isku soo dhaxgelinaa insha allah marka si fiican isku dhaxgeliyo oo si fiican u soo qaso isku soo noqoneynaa keegna waxay ku xiran tahay qasitaankaaga hadaadan si fiican u qasin hadhow waxa way kuuma hagaagi doono
insha allah si fiican iskaga qasaa. waan soo qasay waa kana waa isku soo noqonay sidaas uu igu soo baxay maasha allah. ma rabin inaan idinku sii dhadheereeyo fiidiya inuu dheeraado maanan rabin, that's why aniga u jaray. marka maasha allah hadeer waa kasaa sidaas indhay yar ay yeelatay. keegii waa diyaar, asaga dhan soft uu israacraacayaa, qasitaankiisana aad buu u jilicsan yahay. wax kale kuma aanan darin, waan soo qasa keliya waqtiyaa siinaysaa 1 minute asagaa bis dhexgalaayaba wax badan kaama qaadanaa. markuu saas yahay uu fiican yahay keega. haddana waxaan ku shubanayaa baashi aan ku gashan lahaa foornada. keega kana ku shuban rabaa. keega caadiga waxaa waay dhexda duleelka ka lahaa, waa iska keeg soomaaligeeni caadiga ahaa. maasha allah birta saliid yar iyo bul yaraa soo mariyay. hadeera ku shubitaan bilaabaya, waa ku shubayaa kadib foornadan gelinaa. dab yar inuu ku koraa fiican ilaa iyo adii 30 daqiiqo 40 daqiiqo ku jirayaa. marna hoose ka karinay marna kora ka karinay. marka dambena waxaa waay labada dhinacba u wada shidaysaa. sidaas quruxda badan ay noogu soo baxday. foornadan waxaa loo geeyaa 180 insha allah. ka faa'iidaysi wacan. keegana sidaas oo quruxda badan oo inoogu soo baxay. ugu dambeyn waa kanaa dhankiisa dambe oo hoosena sidaan waaye maasha allah, caadi ma ahan. waaba la kala dadafayba isla markii casriya laga dhiganayay. dhexdiisana markaan jarnay sidaanuu safti u yahay. ka faa'iidaysi wacan insha allah. sidaa iyo nabadgelyo walaalahayga.